bismillahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelanayno agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar sheekh nuur. sida ay intiina badan ba la socdaan waxa xoogaystay khilaaf ku dhexeeya wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir, iyadoo sanadkii 2020 wasaaradda waxbarashadu ay ku wareejisay maamulka gobolka banaadir waxbarashada caasimadda. hadda waxaan eegi doonaa guud ahaan nuxurka waxyaabaha la isku haysto iyo agaasinkan waxbarashada tan iyo markii uu xilka la wareegay waxa uu ku soo kordhiyay waxbarashada caasimadda. cabdiraxmaan soo dhawow mar kale. su-aasha kuwaad waxay tahay nuxurka khilaafkan u dhexeeya gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashadu muxuu yahay? mahadsantahay walaal Faisal iyo daawayaasha dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. saa ula socotaan maaha ummadda Soomaaliyeed dhan la socdaan sanadkii hore 2020 bishii 8 waayadii waxbarashada gobolka banaadir lagu soo wareejiyay xaflad weyn loo dhigay taasoo ku saxiixeen gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka waxbarashada markaas Goodax Barre Cabdullaahi Goodax Barre iyo gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiye Cumar ay ku saxiixeen heshiiska ay waxbarashada gobolka kula wareegay. markii uu la wareegay waxaa lagu xijiyay in daadejintii la bilaabo maadaama heshiiska la dhaqan geliyo. shaqo fiicana la qabtay, waxay ahayd guul gobolka banaadir u soo hayatay in waxbarashada la daadejiyo, loo soo daadejiyo. wasaaraddana guul bay u ahaydoo maadaama dalku uu federaal yahay horena wasaaradihii waxbarashada dowlad goboleed ay waxbarashadii la wareegeen muxuu ahaa bahihii waxbarashada tirada badnaa ay hayeen ay kala wareegeen ayaa wasaaraddu waxay garatay iyaduna inay dhammaystirto federaal levelkii gobolkii banaadir oo dhimanaa oo weliba isagoo maqaamkii siyaasiga gaarin la yiri waxbarashada lagu wareejiyo maadaama waxbarashada iyo caafimaadku labada yihiin wax asaasiya oo bulshadu ay leeyihiin. marka taasna wasaaradda waxbarashada guul u ahayd, gobolkana waxaa guul u ahaa isagana inuu waxbarashada la wareego. sababta wasaaradda u wareejinaysa markaas waxay ahayd culaysyo badan oo gobolka banaadir ka jiray. waxaad ogeedeen mar kastaba waxbarashada gobolka banaadir waxaa la sheegayay inay hoos u dhaca ka jiro, tayadeeda uusan fiicneen, arday badan imtixaanka ku dhacaan. waxaas ay u jiraan waxay maamulkii wasaaraddu garteen in maamulka gobolka banaadir waxbarashada lagu wareejiyo, maamulka gobolka banaadirna uu bedelo waxyaabahaas dhan. intaas marka aan uga baxo qaybtaas koowaad waxaan rabaa inaan u gudbo muxuu kusoo kordhiyey gobolka banaadir markuu waxbarashada la wareegay. marka waxbarashada la wareegnay waxyaaba badanaa runtii noo qabsoomay oo kusoo kordhinay. waxaa ka mid ahaa tirada ardada ee muxuuha ku jirta xogta online-ka ah ee ardada lagu guro markii la ku wareejinahay 12% ayaa ku jirtay ardada gobolka banaadir dhigata fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad. maantayna waxaan maraynaa 41 inay ardada lagu shubay saaran tahay. waxaan kala maraynaa in ardada ka dhimanaa ogaanay imise arday ee fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad dhigta ee sanduuqsiyeedka hadda socda muxuu ahaa bilowday bishii Agost 2021 bilowday. xog imise ka dhiman ee dugsiga aan ardadii ka maqan yihiin online-ka fasaladoo dhan. taas ayadana xoog saarnay baarnay kormeer aan sameynay bishii la soo dhaafay September bishii hore September aan kormeer sameynay. waxaan soo ogaanay 35 ilaa 40 arday inay xogtooda saarneen imiska. tii waxaan go'aansanay inaan soo saarno isniintii la soo dhaafay. waxaan bilownay inaan dirno 72 kormeere oo shaqaalaha agaasinka ah, howlgallada agaasinka iskuulaadka tagaan, arday kasta ay soo hubiyaan, arday ka maqana sida imiska loo geliyo. waxaa kaloo noo qabsoomay 2019 oo ah markii agaasinka la aasaasayay oo howlihii socdeen. imtixaankii wasaaraddu markay shaacisay waxaa waddanka oo dhan ku dhacay 8550 arday si guud dhacday 7,925 arday gobolka banaadir basi ahaayeen. waxyaabihii marka waxaa gobolka laga rabay xukumaha ardadan tirada badan waliba buuq badanaa ka dhacay. waa ogeedeen waxaa la yidhi ardadan dhacaysa waa taga xumada wax ka bedela. shaqo fiican aan qabanay 2021 sanduuqsiyeedka hadda la dhammaaday. waxaan sameynay sideedka waa kormeer gaar ah u sameynay, ardada form 4 kormeer gaar ah u sameynay, ayagoo kormeerada kala socdeen si gaar ah u sameynay. laba arrimood aan xoogga saarnay. manhajkii ma loo dhameeyey, buugaagta ardada dhiganaysa ma la dhameeyey si hadhowta imtixaanka ardada u dhicin jabtara imtixaanka aan loogu dhigin aysan u imaan. laba waxaan xoogga saarnay ardayga imtixaanka galaya hebel ma yahay waxa iskuulka fadhiya. marka fasal kastaan galnay arday aan usoo hubinay meeshaas waxaa marka ka soo baxday
in muxuu ahaa wax fiicana ka soo baxay. maxay kala dunaayeen marka sanadkii hore 2019 markii imtixaanka la gelahayay dugsiga sare keliya 2000 iyo xoogaa arday oo aan imtixaankii loo diyaarin ee ID cardka loo diyaarina banaanka soo istaagtay ayadoo ilaa inuu buuq ka dhaco halis lagu galay wasiirka waxbarashada go'aan qaatay wasiir Goodax waxaa la yidhi hala qaato dadka imtixaan ka shaqeynaya xataa markaas waxay ku taliyeen waa ardadan ogaada waa ardada hadhowta dhicistooda badin doonto runtii way soo baxday way dhacday si arrintaas uga digtoonaano ayaan kormeeradan si gaar ah fasaladaas xoogu saarnay waxaa ka soo baxday marka in imtixaankii markii loo diyaar garoobay waxaa banaanka soo istaagay keliya arday system ku jirtay laakiin aan imaan oo arday sanadka hore dhacday 29 dhacday 180 arday keliya marka waxaa fiirisaa 2000 iyo xogaa arday iyo 180 yani halkii sano ahaynay 180 arday oo ayana system ku jirtay oo ahayd inay oo sanadka hore dhacay oo danooda iska qabsaday oo la rabay haddii rabaan imtixaanka inay galaan inay noo soo sheegaan ayaa banaanka keliya joogtay macnaheedu marka waxa waye ardaydii fadhiday ee iskuulaadka dhiganaysay 100% waa ku guulaysan xogtooda inaan ilaalino imtixaankan loo diyaariyo form 4ka iyo kii 8aadkaba ayana waxay kamid ahayd wixii aan soo kordhinay waxa kale soo kordhinay agaasinka u suurta gashay oo horena u dhicin muxuu ahaa wasaaraddu iyo kulli aysa sameyn iskuul kasta ardada ku jirta markuu iskuulka ardaygan ka tagayo mid kale tagayo in la hubiyo ardaygaas inuu wareegay oo waliba si online loo hubiyo maahan wax warqad gacan lagu qorayo ardayga inuu iskuulkan tago iskuulkiisa tago oo yiraahdo waxaan tagayaa iskuul hebel waxaan rabaa inaad ibadashid see marka ardayga loo bedelaa marka waxaa loo bedelayaa ardayga iskuulka u bedelanayo tagayaa wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaa ii sheegtay in boos aan heli karo مثلا form 3 baa ahay waa inaan marka form 3 fasalka boos ka heli karaa haddii marka iskuulkii dhaha form 3 boos ha ka helaysaa waan soo laabanaya iskuulkii aan ka bedelan intay waxaan leeyahay waa soo helay iskuul aan u bedesho waalidkii ardayga soo dhahaya waa in waalidka la socda ardayga sababaana jira loo bedelanayo waayo qofkan u bedelanaya sababaa jira noo qoran iskuulkiiba ardayga ka tagahaya wuxuu siinaa dokumenti u siinaa dokumenti markuu siiyo ardayga iskuulkan wuu ka baxay ardayga meel dhexuu taagay iskuulkii u socday ayuu ku laabanaya wuxuu leeyahay ya aqbal wuu aqbalayaa online-ku ka aqbalayaa warqada u daabaca asoo labadii warqadood wata ayuu wuxuu imaanayaa xarunta agaasinka dhexe ayay sanadkii hore imaanaya xarunta agaasinka dhexe markay yimaadaan waa la fiirinayaa waa la hubinayaa ardayga inuu wax u bedelanaya sax yihiin ardayga wuxuu yahay markii la hubiyo waa la aqbalaa waxaa usoo baxaysa warqad agaasinka waxbarashada gobolka bandir leeyahay dokumentiyadiisii ayaa la isugu dhejinayaa ardayga iskuulkii u socday oo yiri waan ku aqbalay ayuu tagayaa marka annagu marka aan warqada siina ayuu iskuulka u socday galaa kii horena ka soo baxaa meeshii dhexu ka baxaya nidaamkaas nidaam jiray ma ahayn waa nidaamka lagu hubinaya ardayda tayadooda waxaan soo gudbinay ka mid haddii howluhu sidaa yihiin oo waxbarashadii gobolka lagu soo wareejiyey weliba goob fagaaraha lagu wareejiyo oo wasaaradda iyo mas-uuliyiinta xukuumadda ay joogeen maamulkeedina idinka aad la wareegteen maxay tahay dooda kale hadda ka timid wasaaradda waa maasan tahay marka waa khilaafka muxuu yahay waaye xaggee khilaafka iska haystaan waa arrin fiican in la isweydiiyo dadkan u baahan yihiin in loo caddeeyo wasaaradda maadaama maamulkii waxbarashada ay soo wareejisay caadatan markii qofku wax wareegaan muddana ay dadka waxaan ka shaqaynayeen waxa waaye inay ka daba socdaan midday ku qaadanaysaa wixii ay ka dhex baxaan khilaafka wuxuu ka taagan yahay laba meelood si rasmi markaan bulshada soomaalida ugu sheego sababta ah anigu waxaan ka mid ahay dadkii heshiiska wax ka diyaariyey dadkii waxbarashada inay wareegtay dadkii ka shaqeeyey macnaha dadka ugu muhiimsan oo ka shaqeeyaan ka mid ahaa marka waxa dhan iyo si waxay yihiin dhan waa si fiican oo warqaba khilaafku wuxuu yahay laba meelood xooggiisa ka taagan yahay ta koowaad waxa waaye wasaaradda markii waxbarashadii nagu soo wareejisay ee soo daadejisay farihii kalamaysa bixin oo nooma deyn waxaan ka wadaa macnaheeda inay wasaaradda waxbarashada banaanka intay ka istaagtay dhahaysa maahan gobolka idinku maamusha wax aritaan ka samey maaha waxa waaye sida dowlad goboleedyada kale ula dhaqanto inay noola dhaqanto wasaaradda waxa laga rabaa in quality ilaaliso inay tayada waxbarashada ilaaliso muxuu ahaa manhajka ayadaa mas-uulka siyaasadda waxbarashada ayadaa mas-uulka sharciga waxbarashada ayadaa mas-uulka muxuu ahaa imtixaankii guuda form 4 hadda ayadaa haysa inkastoo lagu soo heshiiyey garowe in imtixaanka ay soo wareejiso iyo manhajkaba laakiin waxaas oo dhan wasaaradda iskale dowlad goboleed kastaana laga rabaa inay ogaato tayadii waxbarashada ka warqabto ardadii ka warqabto wixii ka warqabto marka ana waxaan rabnay
inay sida dowlad goboleeda kale ula maamulayso waxbarashada noola maamusho laakiin hadda saas ma aha waxay wax noola maamushaa oo gacanta ugula jirtaa sidii awal markii ayadu haysay annagana waxaan taaganahay walaalayaalow wixii waa noo dhiibteen mas-uuliyadda nagu aamina inaan ka bixi karana arka markaan ka bixi weyno wasaaradda waxaa laga rabaa haddii xataa annaga nala ka arko inaan shaqadii ku filnaan la'nahay inay tayana siisaan inay awoodna siisaan rabaa inay kharash ku bixisaan laka rabaa heshiisa ku qoranta inay tiraahdo dadkaan aan ku kabayna inay dadna siiso khubra ah inay lacag geliso waxbarashadii ayaa laga rabaa maahane marna inay usoo laabato lama rabo ayada inay tirahdo way meelahan wax ka bedele xafiiskan hala tageeyo marka wasaaradda waxaa laga rabaa inay si xoogan ay awood u siiso agaasinka waxbarashada gobolka banaadir marka khilaafkooda wuxuu yahay meeshii saas laga rabay oo habka dowladda ula tacaamulaysa rabay inay la tacaamusho awoodna na siiso weli lama gaarin farahay waxay kula jirtaa in annagana iskuulka amar siina ayadoona amar siiso horta qodobka koowaad waa maamulka waxbarashada oo guud qodobka labaad waxa waaye la isku haysto oo wasaaradda laga rabay annaga ayadan ku haysana nasiib lena waxa waaye adduunku wuxuu bixiyaa qondo maaliyadeed dowladda soomaaliyana way bixisaa qondadaas maaliyadeed waa markii mashaariic la dejiyo ayaa waagii hore habaa loo dejin jiray somaliland iyo puntland iyo south central loo samayn jiray somaliland iyo puntland lacagahooda from nairobi to waxay ahayd meesha ay degan yihiin toosay u qaadan jireen qaar mashaariicdina qaar ay weli u qaataan inta kalena wasaaradda u qaybin jirtay hadda waa la fiican waa laga sii baxaya dowladda federaalka wixii dhan maamusha oo kulli u wada qaybisa mashaariic hadda socda oo fiican marka meeshii waxaa loo qaybsanaya marka puntland galmudug hirshabelle southwest jubbaland gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada 7 soo maahan somaliland ayadu xoogaa waa barnaamijkii wariga 7daas markii mashruucii lacagihii la helo adduunka laga helayay markii 7 loo qaybiyo wasaaraddu 2 ayay qaadanaysa ayadu marka oo kii gobolka banaadir dhaqaalihii gobolka banaadir iyo kii ayada ayay isku maamulaysa markii gobolkii uu ku soo wareegay waxbarashadii waxaa la rabay in qaybtii gobolka banaadir ay soo wareejiso gobolka banaadir maxaa u sahlaan lahaa inuu tayadii wax ka bedelo inuu iskuulaadka dayactiro inuu iskuulaad cusub dhiso in muxuu ahaa serviceka dadka u qabanayo inuusan lacag ka dhigin waxyaalahaas dhanaa noo sahlanaan lahaa wasaaradda ilaa hadda dhaqaalihii muxuu ahaa gobolka banaadir qaybtiisii ma soo wareejin marka labadaas arrimood ayaa u ah marka haddiiba waxbarashada idinka lidiin dhiibay maamulkeeda dhaqaalahan wasaaraddu maxay ku qabataa ay ku maamushaa taas su-aal fiican waaye in ayaga la weydiin lahayd maxaa ku maamushaan anagu ma naqaan waxay ku maamusho gacantiina lama soo gelin annaga gacantiina lama soo gelin sidee marka u maaraysan iskuulaadka hadda aad maamushaan ilaa dhowr iyo 20ka waa su-aal fiican waxaan u maaraynaa iskuulaadka mushaarka markay tahayna waxaa dowladda soomaaliya mushaarka bixisa wasaaradda maaliyadda muxuu ahaa bixisa muxuu ahaa taasna waa lacagtii ummadda soomaaliyeed laakiin dhismooyinkii iyo dayactirkii iyo tababaradii iyo waxyaabihii waaweyn oo muhiimka ahaa weli ayadaa maamusha waana waxaan isku haysano ana waxaan leenahay iskuul annaga dayactirana annaga dhisayna idinku soo dejiya markii iskuul la rabo in iskuulaad la dhiso ama la dayactiro oo mashruuc markii la samaynayo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka ka wada qaybgalaya laakiin hay-adaha iyo adduunka la hadalkiisa wasaaradda waxbarashada iskale cid ku haysata ma jirto laakiin shaqada hoose markii la yidhaahdo ha loo bedelo ficil wixii in la sameeyo oo mashruucii la soo helo ama dowladda soomaaliya ay lacag ku bixisa iyadoo lacagta canshuurta ummadda soomaaliya laga aruuriya ama adduunka deeqda una siiya ay noqoto markii la yidhaahdo waxaa la rabaa in qolo kasta inay wixii ayadoo samaysato dowlad goboleeda kale way qaataan ayaana samaystaan iskuulka ayaga dhisaan ayagaa dactiraan ayagaa muxuu ahaa manhajka qaybiyaan waxyaabahaas la rabay marka annaga inay nagu soo wareejiso aan weli la soo wareejin waana waxyaabaha khilaafka ugu weyn ka taagan yahay idinkana caqabada ku yahay inaad hawshii annagana caqabada nagu tahay hawshii inaan samayno gobolkiina waa og tahay canshuurtii 100% ma soo aruuriyo waxay noqonaysaa marka in servisyada aan qabanayno inaan lacag ka dhigno waay marka arrinta ku saabsan lacagaha tariifada aad soo rogteen miyaan odhan karnaa waxay culays ku keenayaan bulshadan caasimadda oo aad og tahay duruufo dhaqaale inay haystaan sidaa daraaddeedna loo baahnaa inaad aada uga fikirtaan lacagaha aad kusoo rogeysaan maasan tahay tariifo waa magac laakiin ana waxaan qabanayna waa service waxaan qabanayna waxa waaye adeeg
maxaa ahaa adeega marka waxa waaye hadda adduunka anugu adeeg meel oo laclaan ka yahay ma arkin adeega adduunka waxaa ka soo adama inaad qabatid lacagaa laga qaadaya laakiin in la khafiifiyo wax meesha ku jira waaye adeeg kasta oo aan qabanayno oo nooc raba noqdaan lacag ka dhignay bahda waxbarashada soomaaliyeed intii noo yimaadeen oy dhaheen adeegan lacagta ku qaadaysan waa badan yahay oo aan ka diidna ma jiro waxaa ka mid ah ayaan oota macallimiintan muxuu ahaa rabnay inaan diiwaan gelino waxaan inay c i d da soo mara dad dhigista soo mara sababta macalinka waxaan rabaa markaa diiwaan gelinaysa inaan dukumenti dhammaystiran ka hayst dad dhigista muxuu ahaa hay-adahaasna waa hay-ada naga madax bannaan c i d na waa ammaankii marka culeysyaa ka yimid culeysya markay yimaadeen waa noo yimaadeen midowda dugsiyada gobolka banaadir iyo ururka macallimiinta qaranka soomaaliyeed noo yimaadeen iyo dugsiyada dowladdaba waa nala fadhiisteen waa nagala doodeen waa kala doodnay waa isla fahmnay waana joojinay marka bahda waxbarashada markasta in noo yimaadaan oo aan kala tashanno oo muxuu ahaa ay doodooda dhegaysano alla wixii aan isla garana muxuu ahaa ama yarayna ama joojino horena waa u furneed haddana way furantaa maxaa soo haray marka waxaan hadda laga dhigay muxuu ahaa dooda la geliyey wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayadoo lacago way qaadaa waxaa ka mid ah ardayga markuu imtixaanka galaya fonfoorka ah $10 ka qaadaa ardayga waxa waaye muxuu ahaa imtixaanka qayb ka mid ah lacag shahaaday qaadaa waana dowladda soomaaliya weyneed adduunka lacagay ka heshaa muxuu ahaa isheeg wasaaradda maaliyadda lacag ka heshaa dowladda waxay ku leedahay qoonday ku leedahay waa service way qabataa waa adeeg ay qabato adeegyadan annaga aan qabanayno waxaa qaban jiray sidoo kale bahda waxbarashada daladaha waxbarashada qaban jiray daladaha waxbarashada shahaaday bixin jireen roona bay bixin jireen waxaas dhan samayn jireen marka servicekaas adeegyadaas waa adeegyo la bixin jiray lacagna ku bixi jireen kan marka sababta loo weyneeyey oo looga dhigayo wax muxuu ahaa weyn ama arrin weyn waxa way wasaaradda waxbarashada waxay rabtaa inay ku qariso waxa annaga naga dhexeeya oo labadii qodob aan soo sheegay labadaas qodob lagu qarinaya waxaa jirta arrin la xiriirta markii qofka ardayga uu rabo inuu samaysto bassabor waxaad saarteen lacag inuu baxsho oo lagu caddeynayo ardaynimadiisa waxaana qofkaas uu wataa shahaadadii dowladda mararka qaar iyo aqoonsigiisii ardaynimo ee iskuulaadka idin hoos tagay uu ka wato haddiiba intaa u wato miyaa laga maarmayna in lacag looga qaado inaad warqada caddeyn u samaysa inuu arday waa mahadsantahay horta muxuu aha baasboorka caddeyntiisa anu waxaan keensanay ma aha arrin anu dadkan ku qasabnayna ma aha immigrationka ayaa fikradda noola yimid dhibaatooyin ayagu ay arkeen baasbooradii intay arday lagu qortay ee dibaddii markii lala tegay mashaakil badan ka dhaceen ayay noo sheegeen waxay dhaheen waxaan rabnaa in baasboorka soomaaliya si awood u yeesho si macnihiisa kor loogu qaado waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa wixii arday sheeganaya caddeyntooda inaan caddeyn gaar ahaan gobolka banaadir maaha meelaha kale dhan waan daraasaynay waan fiirinay waxaan ku niri waa samayn karnaa markii arrintii aan isla fahmnana waxaan idhi annaga waxa waaye meeshii waxa waaye wax tira badanaa ku baxaya khad baa ku baxaysa waraaqa ku baxaya korontaa ku baxaysa internet ku baxaya shaqaalaa ku baxaya marka annagii awooddeenna ma ahayn inaan muxuu ahaa free ku samayno oo dhahna dadkii lacaglaan aan ku siina annaga awooddeenna ma ahayn wixiina wax quality ka galay waaye muxuu ahaa qolada immigrationka socdaalka iyo jinsiyadaha sidaasaa marka oga dhignay muxuu ahaa kharash yar oo muxuu ahaa $15 ardayga laga qaado ardayga marka shahaadada dowladda wata ha noqoto shahaadada gobolka uu bixiyo imtixaanaadka sideedaadka ama wasaaradda waxbarashada dugsiga sare ee shahaada rasmi wata kuma jiro barnaamijkaas toos u aadaa ma u baahna asaga warqadda shahaada waa caddeynaysa laakiin ardada kale aan haysan dokumenti noocaas oo caddeyna waayo wax hadda loo sameeyo waxa loo sameynaa qofka ardayga kale shahaada haystaa ayadaasa waxay u tahay caddeyn u tahay way markaan soo koobno dabcan waxaad tiri waxa laysku haystaa ma ahan lacagahan serviceka ah ee agaasinka waxbarashada gobolka qaadee ee waa wasaaraddii oo weli ku dhegan mas-uuliyaddii ay wareejisay inay dhammaystirto iyo maamulka gobolka banaadir oo la taagan war shaqadii aad nagu soo wareejisay noo dhiiba ma la fadhiisateen wasaaradda oo ma tiraahdeen inta u tagteen war mas-uuliyaddii shalay aad noo lagu wareejiyey noo dhammaystira weli ma ka fadhiisteen arrintaas waa mahadsanta su-aal fiican waaye waa ka fadhiisanay aadaa looga fadhiistay waqti badana la geliyey juhd badan lagu bixiyey mid gaargaara iyo mid guudba dhammaantoodna
ma mira dhalin haddii mira dhalahayen maanta meesha la joogo iskuma soo gaareen way marka arrintaas juhdi aan lagu bixin ma jirto xataa madaxda sare in loo tago way gaartay marka arrintaas juhdi fiican la geliyey laakiin ma suurtagelin maanta inay meesha soo gaartaana ay noqoto waana ka xunnaa ma la ogyahay dakhliga dhaqaale ee loogu talagalay waxbarashadan gobolka ee ilaa hadda idinkaga xayiran wasaaradda si rasmiya intaas ma dhihi kara laakiin dhaqaalo badan waaye dhowr milyan wax 10 milyan oo doolar ku dhow waaye marka lacag yar ma aha loogu talagalay adeeg waxbarasho lagu qabto lacagtaasi hadda ma lagu shaqeeyaa ogaanta waxbarashada idinku wareejiyey ma lagu dabcan wasaaraddu way ku shaqaysaa sirri ma lagu shaqeeyaa anu hadda kama jawaabi kara taas laakiin qaybo ka mid waa laga yaabaa qaybo ka mid waa laga yaabaa in ku shaqeeya maadaama caqabadan ay tahay mid taagan wax saameyn ah ma ku yeelanaysaa howlihii waxbarashada ee aad wadeen iyo guud ahaan waxbaradii ubadka soomaaliyeed kuma yeelanayso sababta annaga mas-uuliyadaan haynaa mas-uuliyadda noo dhiibin inaan gudano waaye shaqaalo badana ka shaqeeya muxuu ahaa waxbarashada agaasinka waxbarashada gobolka banaadir oo agaasinka runtii si waxaa loo dhisay xoog leh oo uga madax celinaya guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiye cumar inuu usoo jeestay qaybta waxbarashada iyo qaybaha kaleba gaar ahaan qaybta waxbarashada shaqaalo ku filanaa loo sameeyey maamul ku filanaa loo sameeyey maantana aan kula hadlaayo markii horena aan warkayga ku daray 72 qof oo hawlwadeennada agaasinka ah ayaa waxay jiraan xarumaha iskuulaadka si ay usoo hubiyaan fasalka 8aad iyo fasalka form 3ga iyo fasalka form 4ka ardada joogta oo laba fasalna ay shahaado yihiin hadda sanad dugsiyeedkan socda fasalka form 3gana uu sanad ku xiga shahaado u socdo ayay waxay soo hubinayaan ardaygan fasalka fadhiya miyaha ardaygii la rabay ardaygii la rabay oo saxda ahaa miyaha ardaygan haddii arday aan imiska ku jirinna si imiska loo gelin lahaa laga shaqeynaya waaya form 1 iyo fasalka sagaalaadka ama form 1 iyo form 2 ayaga laguma darin kormeerka maxaa loogu dari waaye labada fasalba imtixaankooda annagaa soo qaadnay labadii sana soo qaadnay lasoo dhaafay waa naqaanaa ardayga fadhiya haddii arday dheeriya uu fadhiyo ardaygaas waa inuu ama dibad ka yimid ama gobol ka yimid bedelna uu ku yimid laakiin ardayga annaga imtixaankeena galay ayaa meesha fadhiya marka sidaasaa fasaladii o dhan loo ilaalinaya waaya marka waxaan rabaa marka meeshaas inaan sheego dadkaas aan dirnay 72 qof iyo 6 gaari oo magaalada daafaheeda u qaadaya shaqaalaha lacagtooda xagee laga keenay wasaaradda waxbarashada naguma kabin waajibaadkeeda ka mid ahay inay na kabto hay-ado lacag kamaana qaadin maxaa dhaha hay-adihii wasaaradda haysata gobolku mas-uuliyadda waxbarashada annaga u hayna lacagtii adeega waxbarashada aan qabanay ee dadka u qabanay ka soo xarooday ashaqaas lagu qabanaya way nuxurka markaan kusoo koobno miyaan oran karnaa doodda waxay ka taagan tahay waa wasaaraddii oo aan ogolayn isla markaana u arkaysa in shaqooyinkii ay haysay iyo howlihii ay maamuleysay oo ka wareegaysa darteeda ayay tahay caqabadda hadda la isku haysto annaga saasaan u aragnaa gobol banaadir nahay annaga gobol banaadir nahay waxaan u aragnaa wasaaraddu inay caqabad u aragto dhibna u aragto inuu adeega waxbarashada ka wareego oo labada aan sheegaa waxaa ka wareegahaya maamulkii ay gacanta kula jirtay waxaa ka wareegahaya kharash lacagihii ku baxaayey ayaa ka wareegahaya marka labadaasi waa laba labadaas culus ka wareegaya darteed annaga aaminsanahay inay wasaaraddu waxay waxbarashadii u dhammaystiri laadahay inay tahay marka waxaan rabaa inaan hal meel wax ku daro oo adeegyada ku saabsan annaga markaan nimid gobolka banaadir agaasinku u yimid ummadda soomaaliyeed gaanaa ardada iyo waalidiinta culays badan oo saarnaa uu ka dejiyey waxaa ka mid ah culays ka dejiyey ardayga soomaaliyeed wuxuu ku qasbanaa hadduu dugsi sare yahay in lacag 100 ilaa 100 iyo dhowr doolara inuu bixiyo oo maxay ahayd 2 row number inuu samaysto 2 shahaado inuu samaysto ya marka hadduu rabo marka inuu sameeyo wuxuu soo samaysanayay iskuulkii wuxuu ka soo qaadanayaa row number ayaa laga rabaa marka row number ka soo bilaabataa row number markii lacagtiis wasaaradda dowladdii ka qaado marka hore wasaaradda 8 lama qaadi jirin arday dugsi sare aan xisaabiyeynaa markii row number $10 laga qaado markuu imtixaankii uu galo uu ku baasana iskuulkii la dhaho warqad ka soo qaado lacag ku baxdo haddana daladii intuu tago daladii shahaado siiso oo ayadan lacag badana $100 ugu yaraan ah haddana wasaaraddiina ay $20 ka qaado $10 wasaaraddii ID card uga qaado row number uga qaado lacag $105 $110 ah
ayaa arday ka bixi jirtay hadda maxaa ka baxay maanta maxaa ka baxa marka maanta lacagta ugu badan arday ka baxda $40 ilaa $50 ah maxaa keena farqiga waxaa farqiga keenay marka annaga nimid agaasi waxbarashada gobolka banaadir uu yimid arday dugsiga sare annagaa maamulna hadda macnaha waxa waaye iskuulkii iyo annagaa isku xiran waxaa marka dalladihii iyo bahda waxbarashada sababaha ay uga mid yihiin dagaalka wasaaradda hadda ay uga mid yihiin waa dhaqaale oo maxay tahay ardayga lacagahaana meesha ka baxay waxaa ka baxay roona markay qaadi jireen waxaa ka baxay shahaadadii ay bixin jireen waxaa ka baxay transcriptiga ay bixin jireen lacagahaanu ardayga saarnaa oo dhan meesha ka baxeen hadda ardaygu markuu rabo inuu shahaada wasaaradda waxbarashada ka dalbado roon numberkii uu imtixaanka uu ku galay ayuu geysanayaa markuu geystana waxaa la siinayaa shahaadadiisii marka waxaa ka baxday ardaygii $20 iyo 10 oo roon numberka ahayd 30 bisaa ka baxday marka hadduu markaas baasur u baahan yahay ama magacyadiisi wixiisa culays ka jiro waa laga yaaba in la yihahdo dhegeysta tag ka soo qaada warqad caddeena oo markaa 15 ku biirto kii sideedaadkaana la mid markuu imtixaanka galayo toos annaga ula xiriirna $10 roon numberkaa laga qaadahayaa markuu imtixaanka galana shahaadadiisi ay dhikaarkiisu ku qaadanaya waxaan u fahmaa marka shaqooyin ay hayeen hay-ado kala duwan oo ay ka mid tahay dalladaha iyo wasaaradda waxbarashada ayaa maamulka ku soo wareegay sidaa daraaddeed ayaa culeysyada idin kaga imaanaya waxay yihiin dhinaca ha culeysyada nooga imaanaya waa dhinacaas marka si rasmi ah dadweynaha soomaaliya loogu sheego anna marka culeyskana saaran waxa waaye waa soo korornay korankiima aan soo korornayna waxaa loo arkay hay-adihii ka shaqaynaya waxaas qabanaha adeegyadaas culeys inaan ku nahay u arkeen marka dagaalku waa dagaal halkaas ku jira laakiin annaga markii loo fiiriyo waalidkii iyo ardayga loo fiiriyo annaga waxaan usoo kordhinay wanaagaa usoo kordhinay sababta lacag badan oo ka bixi jirtay ayaa ka qaadnay ugu dambeyn marka si loo helo xal ma ka fikirteen qorshe hay-adahaasi kala duwan aad soo sheegteenna shaqooyinkoodii ay kusii wadan karaan maamulkuna qaybta agaasika waxbarashadana uu shaqooyinkii loo egmaday kusii wadi karo oo lagu kala nabadgeli karo haa waaye wasaaradda waxbarashada ugu horeysa hooyadii dalka ah waddanka ayadaa mas-uulka ah waxbarashadiisa inay wasaaradda waxbarashadii dhammaystirto gobolka banaadir dhaqaalihii u baahnaana siiso sababta hadda annaga dhaqaalaha wasaaraddu ay hayso ee helno adeegyadan aan qabanayna iyo lacagahan qaadayna meeshay ka baxayaan waana iska dhaafaynaa ma fahamta wixii laga maarmaana maaha shahaadadoo kale de waxa waaye adduunkan in la ogyahay wax in la gata ah sidoo kale marka wasaaradda horta waxaa laga rabaa inay waxbarashada daajiso dhaqaalana waxa waaye dalka iyadaa mas-uulka ah dhaqaalo ka badan way helaysaa bahdii waxbarashada soo haray dalladuhu doorkii ay lahaayeen annaga ka soo baxnay sharaf ay leeyihiin laakiin doorkii ay lahaayeen maamulkii waxbarasho ee dalka o dhan la wareegay dowlad goboleedii yani hadda dallad ka jirta dowlad goboleed kale maba jirtaba xamaray ku soo aruureen xamarna agaasiku markaa ma jirin waxbarashada gobolka banaadir agaasika markuu yimidna agaasigaa doorkoodii qaatay doorarka usoo haray waxaa ka mid ah inay qayb ka noqdaan tayada waxbarashada ameerkii waxaa ka mid ah inay tababaradii bixiyaan taasoo oo gobolkuna lacag muxuu aha marka mashaariic hel ku siin karo wasaaraddu ku siin karto hay-adaha caalamiga ku siin karaan marka majaalka yani waxbarashadu waa waaweynta waa ballaaranta meelo badanaa laga shaqayn karaa ayaguna ka shaqayn karaan annaguna ka shaqayn karaan iskana kaashan karnaa marka in kooban oo gacanta lagu wada hayaa muddaa in gacanta lagu hayaa wax la isku haysto intaasna servicekii marka annaga qabanayna waalidkii iyo ardaydii culeysaa ka dhacay waxaa rabaa marka in saas dadku u fahmaan meeshaasna laga qaado muxuu ahaa culeyska aad baad umahadsan tahay agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar sheekh nuur ayuu ahaa oo waraysi gaara aynu la yeelna cabdiraxmaan aad waa mahadsantahay aad waa mahadsantahay Faz TV